Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ardayga soo dhawaada meel kastoo daafaha caalamka joogtaan waa macalin maxamed jacsaal iyo tiimwanihii sahal software ee aad ka baran jirteen culumta kala duwan ee teknolojiyadda iyo IT-ga u badan casharkan waa casharkii lixdaatanaad waxaynu ku dhex jirnay courskii bootstrap 5 waxaynu eegi doonaa navbar iyo suu shaqeeyo oo xaqiiqatan marka laga hadlayo website designka door weyn ka qaata haddii aad nagu cusubtahay marka hore waxaan rabaa inaan ku xasuusiyo websitekeena sahalsoftware.com waxaad ka helaysaa xirfado badan oo aad ka baran karaysa qaab online adoo gurigaaga jooga kaliya waxaa kaa xiga inaad isdiiwaan gelisid kadibna aad nala soo xidhid waya navbarka muxuu yahay haddaba cashirkan ka horreeyay nav ayaan kaga soo hadalnay oo menuyada si loo sameysaan kasoo hadalnay laakiin menuyada wuxuu u baahan yahay in la qurxiyo oo baar loo sameeyo yacni meel yaro background yaro gaara in loo jaro tusaale waxaa kugu filan sawirka halkan ka arkaysa oo kale halkan maxaa arkaysaa loogada halkan inay imaanayso halkan menuyadii tusaalehaan home oo kale hadba websitekaas waxaa lagaga hadlayo menuyadiisii halkan oo kale badhan waxaa loo samayn karaa meel text wax lagu qori karayo badhan search aa loo samayn karaya intani waxa weye waa navbar baa la navbar website kasta marka lasoo galo waa inta u sarreysa kuu muuqanaysaa tusaale hadda sahalsoftware.com xilligan designka uu yahay aan isla eegno navbar intaas weeyaan hadda backgroundkaas yar waa caddaankaas intaasoo caddaan maaha menuyadana ku halkaa ku samaysan halkana maxaa taala loogaa taala loogada halkaasi taala soo ma jeedid marka this is a navbar see navbarkan oo kale u samayn karaysaa ama mid ka qurux badan see u samayn karaysaa cashirkan kaas ku saabsan marka cashirkaa dhammaysid waxaa laga rabaa navbarka sahalsoftware ay leedahay oo kale inaad samaysid oo mid ka qurux badan inaad samaysaa laga rabaa toolka lagu isticmaalo dhan navbarka lagu sameeyo dhan ayaan kutusi doonaa haddii la qadaro ilaa 12 tusaale ayaan kusoo diyaariyey oo kala duwan marka insha allah step by step aynu isla eegi doonaa waa aan soo qaato exampleka koowaad tusaalaha koowaad aan soo qaato oo ah basic navbar kan waa basic ama aasaaskii haddaad aasaaska fahantid hadhow kuwa kale wax yar unbaa kaga bedeli doontaa waa qurxin doontaa keliya marka navbarada la sameeyo ama navigation nav waxaa loo soo gaabay navigation bar inta badan ama navigation baa leedaha extending mid fidsan waa la samayn karaya collapse mid soo laamayana waa la samayn karaya hadba waxay ku tiirsan tahay screen size-ka u baahan tahay ku tiirsan tahay size-ka u baahan tahay ku tiirsan tahay galaaska la isticmaalo inta badan navbar ayaa loo yaqaanaa galaaskaasaa lagu shaqayn doonaa laakiin hadhow to adaa expand ama xxl ama xl ama lg ama md ama sm adaa hadba kaarta ka dhigan doona insha allah hadii la qadaro tusaalaha koowaad haddaan isla soo qaadno koorka wanaan ku siinayay wakaas koorka saa u eg saasha isha u dhexmari menugaan samayn doono navbarkaan samayn doono koowaad koorkiisu wakaas halkaas ku egiya haddaan isla eegno waxaa soo baxaya cashirka lixdaatanaad onkiisa point one waa cashirka examplekiisa koowaad haddaan kalik siiyo wakaas hadda maxaa soo baxay navbar tusaale linki 1 linki 2 linki 3 yacni waa menu home tutorial english oo kale ama it forex menuda ku saxaysaa laakiin backgroundkaasi waa midab graya ilaa halkaas soconaya laakiin si fiican arki maysid aan koorkan tago isku dayo inaan bedelo lesson 26.1 waa kan colorkiisa xaguu ku jiraa waa inaad koorka akhridaa marka navbar glass navbar halkanaa lagu sheegay colorkiis waa beige background light weeyaan aan ka bedelno tusaale aan idhaahno waxaa ka dhigtaa for example information ka dhig counter aan idhaahdo dabeedna aan idhaahno refresh soo ma jeed backgroundka marka navbarka marka waa size-ka hadba intan hadda anaa ka dhigay laakiin hadba inta hartaa ka dhigan kartaa inta uu ku noqonayo websiteka hadda kan oo kale ilaa halkaasi weeyaan soo ma jeed navbarku kana waa kana ka yar baad mudda laakiin adigu size-ka adaa dooranaya menuyada saad u qoraysaa adaa dooranaya wakaas navbar this intaas waa maxay waa menugii intaas waa navbar halkan waxaan doonaan ku shuban karaya badhamo search iyo waxaan doonaan soo gashan karaya exampleka si fiican ila fahantay ayaan rajeynaya exampleka labaad waxaan soo qaadanaynaa vertical navbar waxa weeye navbar taagan hadda kii hadda wuxuu horizontal baa by default menuga inta badan default ahaan waa horizontal marka kan horizontal cid ku sheegmayso navbar baa lagu leeyahay waa horizontal wuu jiifaa laakiin vertical waa kan oo saa u taagan ma samayn karaya isagana aan isla eegno for example navbarkaas marka vertical laga dhigayo koorka exampleka halkan ka soo qaad halkaas ku bilaabanaya koorka wakaas waa ku dhex soconaya kii hore wax yar buu kaga duwan yahay arki doontaa insha allah sidoo kale haddaad buuggan copy garaysid markaad copy garaysid waxyaabahan footerkaasi uu kaa raacayaa waa inaad iska masaxdaa oodan ku wareerin titleka hadduu kaa raaco kale waa inaad iska masaxdaa koorka waa inaad fahmi kartaa wax walba waxay qabanayaan ilaa halkaas ku egyahay exampleka la isagana isla eegno waa vertical waa kaas soo jeed waa vertical waa kaas link 1 link 2 link 3 waa menuyadii home page forex ama it ama english ama sign in ama about us waa kaas waa vertical backgroundkana waa graygii midab kale waad ka dhigan karaysaa waa ina hadda ku tusay
nav barkii oo xagga menuga aynu ku qorano center dhexda qoraalka inaan ku qorano center marka justify baan isticmaali doonaa ilaa barnaamijkii wordka ay kula socday excelkii kula socday html ku saartay css kulli justify siisi weeyaan galaaskaas la isticmaali doonaa koodhka aan ku tuso marka meeshuu kaga jiro inaad garataa oo calaamaysataa waa kaas justify content center qoraalka wixii content dhexdii game mujida nav bark waa sidiisi 1 2 3 waa kaas qoraalka waa ku dhex qoran karaysaa baargaraafyadaas iska caadi halkaas isaguna ku dhamaaday isagana example saddexaad aan ku tuso kaas ma jirto link 1 link 2 link 3 yani home page about us sign in oo kale kuwaas dhexdii yaala waa center laakiin nav bark ilaa halkaas way calaamaysan tahay midab gray ay marsan laakiin midabkaada bedelan karaya okay markan waxaan isleegi doonaa inkastoo aan ku tusayba colorka nav bark si loo bedelo hal xabaan ay kugu tusay laakiin kalaradii oo dhan loo wada bedelayo aad soo baratay kan ayaan ku tijaabinay soo hayn big info one baa ka dhigan kartaa danger baa ka dhigan kartaa waxaad ka dhigan karaysaa kalaradii haddaan ka koowaad kulli waa exampleka afraad sana aan kulligii aan dhex socdaba kulli aan dhex ma afartaa bedeli karaysaa kulli waa kuwan aan saa u dhex socdo ilaa halkaas ku ekaan doonaa oo fiirso haddaad joojisanaya meel ha isdhaafin tartiib codka muuqaalka waad joojisan karaysaa yani kalaradii oo dhan baan ku tusaya kalaradii naafbaara badan baan samaynayaa la soco insha allah waa naafbaaris badan baan samaynayaa bilaa halkaa sii soconaya marka halkaas ku dhamaado okay aan isla tijaabino examplekan waxaan filaya waa fourka yes waa kan naafbaar mar waxaa ka dhigi karaysaa isagoo grey waa kaas kan backgroundka waa black fartuna waa caddaan kan backgroundka waa information farta waa white kan waa success waa green oo kuwaas these are naafbaaris waana bedeli karaysaa haddaa u baahan tahay farta midabkeeda lafta waa bedeli karaysaa waa kusoo baray si farta midabkeeda loo bedelo marka taana waad garanaysaa sida laga dhigayo hadda haddaynu example u qaadano salstor kale backgroundka waa maxay waa white fartuna maxay tahay haddana waa madow loogadana loogadii salstor ku jirtaa okay sidoo kale active iyo disable waa isticmaali karaysaa xaaladahaas oo glasska activeka waa taqaanay waxaad la isticmaali doontaa haddaad doontid tagga eega oo ahaa linki ahaa isagoo disable waa kan waad samaysan karaysaa wax soo baratay markana waa brand ama logo oo website kasta dabcan wuxuu leeyahay hadda salstor logadeedu waa maxay waa estas meesha cagaarka ku dhex jirta this is logada salstor marka logo website kasta waa inaad u samaysaa waa inuu websiteka looga leeyahay marka qaarkood marka loogada sawir noocaas ku noqon karaa qofkuna wax ku oran karaa logo waxay noqon kartaa websiteka magaciisu ku oran karaa waa logaya marka inta badan in sumad yar loo sameeyo ayaa fiican marka logo laakiin halkan si usoo gelinaya haddaan soo samaysto oo kale logodii diyaarsata oo kale waxaa jira application lagu samaysto logooyinka marka ama dad gaar oo sameeya logooyinka jira marka logo samaysto halkan see usoo dhex dhigaysaa halkaas see u dhigaysaa sizeskaas see u qaadanaya marka kan wax isleegi doonaa marka navbar brand log si loo isticmaalo ay isleegi doonaa ama projectka magaciisu noqon karaya example-kan shanaad ayaan kugu tusayaa koorkaas si loo isticmaalo tartiib isha saa soo mari navbar brand oo kaas halkan waxaa lagu qorayaa logo halkan waa haddii aad rabtid meesha la riixayo hashtags waa lagu diyaariyey waa linki aad ku qoranaysa haddii rabtid meel lagu riixo waa kaas wax kaloo soo korremi jiraan waaba intaasba soo ma jeedid aan isla eegno kaas maxaa ku qoran logo waana sumada muuska hadda muxuu sheegay inay meesha linki tahay ayaa la sheegaya inkastoo meel la aadi aan la sheegin haddii aan hadda click siiyo laakiin waa ku xidhan karaa meel la aadi soo waad garan sida loogu xidho sbart kaas waa logo marka qofkan shirkadoo kale magaciisu looga ka dhigan karaa sidaa darteed waa magacaasu looga ka dhigan karaa dabeedna halkaas ka oolaysa magacaas halka oolay waa logo sidoo kale halkan waa muhiim inaad fahantid marka navbar brand la isticmaalayo logada imageka aad haddaad sawir soo gashanayso kale botsera 5 wuxuu sameynaya automatically ayuu u style garanayaa naqshada oo uu fit garanayaa navbar vertical ahaan buu dhigaya yani isagaa ku saxaya tusaale ahaan hadda halkan hadaan eegno logo halkaasi fidha soo ma jeed automatic yani korna magacu kor xagga sare ma jiro magacu hoosna ma jiro bartanku ku jiro soo ma jeed halka yani meesha ku yaalo styleka kanoo kale hadaan dambarta soo haddii hadda sawirkan logo hadduu sawir weyn ahaan lahaa intaas ka weynaan maayo intaas ku ridiya haddaad sawir soo samaysto logo weyn uu yahay intaas buu kugu ridiya uu kugu soo ururinaya this marka waxa laga wada automatically intaas weeyaan tijaabin insha allah example-ka lixaad aan isla eegno waa kan isha mari maxaa isaga kusoo kordhay kii hadda muxuu kaga duwan yahay aan isla aragno wuxuu kaga duwan yahay maxay
halkan maxaa la soo geliyey sawir image source markii dhid magac baa kan laakiin waa maxay sawir baan soo geliyna marka sawirka maxaa la yiri image intaan la soo qoray png laakiin adigu ku bedelo sawir soo qaado folderka wax ku sameynayso ku rido horaan ku soo baray magac ula bax magacaas oo marka xagga koodka la tagtay magaci ku bedelo pixel cabirka hagaajiso waxaaga isalaxo ku rid tusaale aniga waxaan soo qaatay sawirka la yiraahdo for example waxaan soo qaatay SU aan isla eegno waa Sahal University ayaan soo qaatay si aan ku tuso waxaan soo qaatay loogada jaamacadda Sahal University soo jeed loogadan soo qaatay loogadaas xagaan soo dhigtay loogadaas waa muhiim ardayga waxa ardayga qabsata wax yar oo iska fudud baa laga yaabaa koodhka inuu ku naacabo qof ama ku dawaqo yani hadda sawirka maanta wuxuu ku leeyahay waa soo geli ii shaqeyn waa ka hornaya mar kasta cabashada sawirku way igu soo noqotaa cashar kasta inta badan waa ku dhex daraa sawirka aad soo qaadanaysid magac u bixi sidoo kale sawirka dhex dhig folderka aad ku shaqaynaysid ee faylka filisha ku dhex yaalan dhex dhig has ilaawin yani locationka saxo haddaad folderkan folderaas dhex gelin kartaa laakiin locationkaas ka khaldin sawirka magaca tusaale SU aan u bixiyey .jpg baa raacsan sawirka aan soo qaadayo aada internet ka soo qaadayo isagaa wata extension sawirka isagaa wata extensionka wata lama bedelo laakiin maxaa la bedelayaa dhotka waxa ka horeeya magacaada baad bedelaysaa magaca waxa ka dhigatidna xagga koodhkaad imaanaysaa waad ku qoranaysaa symbol waa intaas keliya weeyaan kadibna waad kicinaysaa for example haddaan isla egno exampleka loogada waa casharkee waa example ka lixaad baa soma aan faylka lixaad sawirka lixaad kiciyo waa ka 26.6 aan kiciyo wataas loogadii soo jeed loogada SEO ka maxaan ka hadlay automatic isaga yareeyay iska ku riday soo jeed boxkaas ku riday si automatic ah buu sarafka iska kaas ka loogada marka soo meestal kaas hadaad cabirka weynaysid loogada ku yar weynaanaysa hadba aan naqshada ada gacanta ku haysta ada salaxay inta misla fana ardayo waxaan isku dayaa inaadan hal xaba aan khaldan jecla oo aad ku raaxaysatid casharka okay kan waxa weeye navbar oo text navbarki marka maxaan ka dhiganaa meeshii kii hore looga laba jeer soo gal marna magac ahaa oo la riixi karayo marka waa text caadi waa qoraal click ma laha yani click lama riixi karayo waxaan rabaa inaan meeshii ka dhigo navbarki loogadiisii text caadi qoraal ayaan ka qoro aan la riixi karin kaligiisan karin markaasina koodhkiisa waa kan kii hore wax badan kagama duwana isha saa mari halkaas ku eegay halkaas ayuu ku eegay way aynu arday islaagno kana xalkiisa waa 7ka wakaas oo qoraal caadi soo jeed navbar text ku qoran waxa aad ku qoran karaysaa marka click iyo mouse-kii aan sameynay malaha link iyo dhamaamish ka maqan kana way gaysaa Soomaa waag waxa soo keenay ardayo hide the navigation-ka inuu qarsoomo oo hide garoobo oo maxaa laga wadaa tan koodhkan ku tusiyaa practical side aragtisa waqti kugu ilaaliyo koodhkan horta dhex soco wakaas ilaa halkaas okay aan isla eegno waa 8kan filaya okay navigation barkan haddii maartay for example you can also remove the navbar expanded or remove garan kartaa tusaale aan ku sameeyo hide navbarka an example kale aan ku sameeyo aad fahmi karaysid tusaalaanka casharka koowaad aan soo qaato example koowaad aan soo qaato example koowaad waxaan sameynayaa halkan saad wixii fahamtid halkan oo kale boarding aan ujeedaa boardgaas waxaan gashanayaa for example waxaan leeyahay 1 PR baan iska leeyahay tusaale ahaan iyo kaadi waan badinayaa fiirso waan badinayaa yani waxaan ka wadayaa website qoraal baadaan ku jiraan ka soo qaadaya for example oo scroll bar baa markaa samaysmaya soo ma scroll bar ayaa samaysmaya tusaale aan ku siiyo wahagaag aan sii socdo ka soo qaad hide the navigation maxaa looga jeeda hide navigation barkii waxaa la rabaa markan in la qariyo ujeedada loo qariyo maxay tahay very often especially on hide the navigation maxaa looga jeeda hide navigationkii in la qariyo waxaan rabnaa navigationka inaan dhinac walba kaga imaan karno
website-yadu way kala duwan yihiin marka website-yada aad dhex marisidna menuyadu way kala duwan yihiin waad arkaysaa kan oo kale maxaa looga jeedaa hide the navigation waa meelaha loogu jecel yahay bootstrapka oo marka qofku uu barto html iyo css oo menu uu samaynayo rafaad badan ayuu kala kulmaa in menuga la qariyo marka qarintan waxaa looga jeedaa haddii for example small screen haddii mobile la isticmaalayo oo website-kaaga mobile yahay waxaad rabtaa marka laysku soo celiyo website-kii in uu wixiisan wax fool xun uusan kaa noqon tusaale yar haddaan ku siiyo for example aan soo qaato sar software aan inoo yareeyo hadda markaan saa ahay saa marka hadda tahay saa screenku yahay navigation barka ama menugii si fiican baad aragtaa laakiin screenka hadduu soo yaraado oo saan soo noqdo kale tusaale ahaan maxaa dhacay navigation barkii wuu qarsoomay yani menuyadii kugu jiray lama hayo laakiin maxaa halkan yaalla badhan yaro click ayaa meeshii badhanba meeshii yimi dabadna waa kan menuyadii marka menuga waa kan haddaan xataa screenka sii yarayo aan idhahdo for example niyo qofka mobile dadku isticmaala mobileka noqonaya mobileka wakaas soo jeed wakaas haddaan click siiyo waa kan menugii marka saasoo kale sidee u samayn karaya kaasoo kale sidee u samayn karaya mawduucan ka hadlaya kaas weeyaan okay koorkan ku tusa haddaba marka screenada yarar ayaa hawshaas kale loogu talagalay in saa lagu sameeyo screenada adiga soo bartay marka exampleka sideed weeyaan aad buu muhiim u yahay si fiican u eg sida hawsha loo xalinayo si fiican koorka isha u mari waa meelaha inta badan qofku marka html css keliya u mariyo uu ku rafaadi jiray waa lagu xalin karaa html css laakiin inta badan waxaa ku fiican bootstrapka in lagu xaliyo bootstrapna waxyaabaha aadka loogu jecel ayuu ka mid yahay koorka saa u dhex mar aan halkaa ku xidhay marka practical fiican ku sameeye examplekana waan ku siiyey ujeedada laga leeyahay laakiin cashar examplekan keebuu ahaa 9 kii ka horreeyay 8ka weeyaan aan isla eegno website-ka 8ka aan kiciyo 8ka waa kan aan saa soo yeeray si hadda saltiran ku tuso aan samayn aan soo celino wakaas badhan baa samayso marka click siiyo wakaas soo jeed kuwii hore miyay lahaayeen may lahayn ka koowaad aan isla eegno for example kan soomaan koowaad aan saa idhaahdo haddaan soo celino for example saan idhaahno wakaas menuyada hoos buu waa foolxumo marka saa waa foolxumo waa in badhan la helaa click la siiyaa badhankaas wixii inay kugu jiraan laakiin si hadda qaabtaro foolxumo weeyaan sidan sax ma soo jeed marka casharkaas waxaan filaya waxa kugu cusub inaan practicalkiisa ku tuso adigana iga daba samee insha Allah haddii wax kugu adkaadan groupka aad isoo dhigi kartaa sidoo kale luuqa waad iga soo qaban karaysaa mar walba diyaar baan ku ahay inaan ku caawiyo insha Allah oo kaas diyaadna saasaan kaga tegayaa waa isla fanaan filaya okay allahumma salli ala sayyidina maxamed ka sagaalaad muxuu yahay waa waxa weeye nav barki waxaan sameynaynaa drop down marar badan baan ka hadlay drop down laakiin waa muhiim inaad nav barkaagii ama menuga drop down ku darsan kartid marka waad samaysan kartaa simple code saa u dhex mar arday code-ka saa u dhex mar haye wixii kugu cusub qaado halkaas ku xidhmayso ba wax kaa qariyay ma jiraan wax walba waa ku tusay okay waa casharkaas aan isla eegno isagana waa 9ka aan click siiyo wakaas menuga waa kan laakiin maxaa ku jira drop down ku jira kuwaas drop down kukaas marka macallinow waan keeni kari waayey yaan kaa maqal drop down gaar baan ku soo haddana had yartan nav barkii waan kugu daray menuga waan kugu soo baray gaarna waan kugu soo baray iyagoo menuga ku jirin ku raaxaysan insha Allah practical fara badan ku samee kan waxa weeye aad buu xiiso badan nav barka waxaan rabaa inaan ku darno form meel yaro search oo kala ama badhan yaro search ama submit ama save inaan ku darno ayaan rabnaa nav barka waa exampleka tobnaad okay waa ku tusaya laakiin koorka dhex soco meesha wax lagaga darayna isha mari buttonkan waa lagu soo baray laakiin maxaa ku cusub nav bar toggle soo jeed tape button soo jeed data dash bs dash toggle soo jeed collapse markaas saa soo dhex mari dhex marso wakaas ilaa kaas lagu xidhay okay aan ku tusay isagana waa exampleka tobnaad soo ma wakaas halkaa maxaa yaala weliba search baa halkaa ku qoran soo jeeda qofku si waxa looga jeedo qofku u fahmo search baa soo jeeda search baa ku qoran weliba html-ka kugu soo baray halkaa in lagu dhex qori karay search magacaas aad soo baratay badhankana search halkan lagu qoro ka qofka waxaa lagu talagalay markuu wax raadinayo kale website wax ka raadinayo kale for example waxaan rabaa inaan wax barto basic computer kale markuu basic qoro markuu search yiraahdo haddii halkan koodkii ku jiro wax raadin lahaa uu shaqaynayo click marka la soo rabaa inuu xogta soo raadiyo marka wixii aad dirtay inuu ku soo qabto ayaan rabaa marka hadda maxaan ka hadlaynaa ka hadlamayno the back end ka hadlamayno php oo qaybta back end ama mysql ka shaqeynayno data wax laga raadin ka shaqeynayno laakiin just waxaan ka rabnaa inaad samayn kartid xilligan waxaa lagu jeedaa front end soma banaanka inaad qurxin kartaa laga rabaa banaanka inaad qurxin kartid baa laga rabaa hadda soo qof kasta uu garan karaa halkaa maxaa search oo ku qoran haddii website Soomaaliya samaynaysid
halkan raadi baad ku qori kartaa magaca search dabeedna halkan barnaamijka raadi baad ku qori marka qofku uu fahmayaa meel wax laga raadinaya tahay wixii uu ku qorayaa uu raadsanaya marka adiga design-ka inaad qurxin karto ayaa hadda laga rabaa marka kaana waad fahantaan filaya waayahay maxaa kaloo xiisaha badan ee cashirkan ku daray waxa weeye fixed navigation bar qofka website-ka loo sameynaya wuxuu ku oran karayaa navigation barka waxaa ka dhigtaa fixed midaan soconayn oo dhaqaaqayn kan saa u fahantid waxaan rabaa inaan ku tuso for example lesson 26.1 ka koowaad baan wax ku tijaabinaynaa kii koowaad okay halkan aan ku noqdo mar kale ka koowaad aan halka klik siiyo kan oo soma kan oo markaan samaysanay okay haddeerto scroll bar ma laha dee inuu navigation kan fixed yahay iyo inuu meesha ka baxayo hide garoobayo ma cadda marka yani down la aado marka la soo yareeyo size isla fahnay laakiin marka hadda scroll hadii halkan website ku qoraal badan sawirro badan wax yeelaan aan hoos aado navigation kan ma qarsoomaya mise saas u taagnaanaya way soo shir wadin tale excel ka hada soo barateen waxa soo bartay 10 loo freeze oo soo bartay oo ah title ka jooji isaga dhaqdhaqaaqi kana waa sidoo kale see hawsha soo dhacaysa okay halkan iska imaanayna waxaan halkan qoraal ku dareynaa bal sugada waxaan sameeynaa for example qoraalkaas example-kaas aan copy garaynaya waxaan leeyahay new ebody tusaale ahaan badi baan leeyahay si meesha aan u helo content badan aan u helo daawaya si meesha scroll u yimaado baan u jeedaa control iska dhig halka haddaan refresh niraano waxaan geli waa kale laakiin haddaan hoos scroll baa meesha soo kale scroll ma jeedaa haddaan halka scroll-kaas soo jeed inaan hoos soconayo laakiin maxaa navigation-kay ku dhacay navigation-kay wuu qarsoomay menu ma aragtaa wuu qarsoomay website-yada qaar waa la qariyaa tusaale haddaan soo qaato salsoftware.com aan aado haddaan aado hoos aado navigation barkii salsoftware miyuu qarsoomay maya qaarkood waa la qariyaa oo wuu qarsoomaa hadda waxay ku xiran tahay cidda website-ka loo sameynayo iyo ujeedada laga leeyahay website-ka ay ku xiran tahay hadda kaas wuu taagan yahay soo ma jeedid mararka qaarkood markaa inta badan waa hagaag weli waa sii soconaynaa example kale aad u xiiso badan baan ku tusayaa waxa jira wax la yiraahdo fixed navigation bar oo navigation barkayga fixed garay yani uusan dhaqdhaqaaqin halka ay taagnaado maxaa looga jeedaa intaan tusaalaha ku siin tusaale waxaad fahmi kartaan ku tuso ka soo qaad website-ka salsoftware.com aan galnay halkan waxaa yaala navigation bar baa yaalo menuyada halka yaala soo ma jeed menuyada halka yaala haddaan marka scroll-kan aan dhaqaajiyo hoos aan aado miyay taagan yihiin mise way qarsoomeen menugii ma taagan yahay wuu taagan yahay marka ma dhaqaaqayo soo ma jeed hadaa xitaa hoos aado ma dhaqaaqayo waxaa laga yaaba marka website inaad sameynaysay markaad shaqo kasta qabatay inay caqabad daayar ku qabsato aad tiraa war waxaan menugiisa u joojiyaa inta badan menuyada waa la joojiyaa waa la fixed gareeyaa mogtahay halkaasaa la fadhiisiyaa sidaas u dhaqdhaqaaqay inta badan marka inaad tirahdo wareedhe see u joojiyaa menugan website-kii haddaad samaysid wuu iska dhaqaaqaya tusaale menuyada hadda default-gaan soo sameynay haddaan ka koobaad tago for example kii koobaad example koobaad haddaan kan kiciyo kan soomaan kii koobaad hadda ka koobaad ma garan karo inuu fixed yahay in kale halkan qoraal badan baan gelinayaa balse aan ogaano scroll inuu yahay in kale wuxuu sameeyo halkan aan iska imi ka soo qaad kii koobaad waa kan halkan aan qoraal gelinayaa tusaale ahaan u fiirso waxaan leeyahay control c i copy gare waan badinayaa control v u fiirso intan haddana mar kale control c i dheh haddana mar kale ii badi control v control v control v si aan scroll u samaysto marka hadda refresh raado scroll baa samaysmayso ma waa kan oo wax badan website content badan ku jira hadda headerkii mee ama menugii mee wuu qarsoomay miyaad haysaa maya website dhan aad samaysay oo qurxisay oo wax walba aad fahantay ba caqabada yar ku qabsanaysa marka saa oraysa wareedhe bootstrap ba ka guurtay haddaba marar badan markii qofku wax baranayo oo kale marba wuxuu oranayaa nin luqadan inta yarta ma guurtaa qodanaysa marka see u xalinaysaa haddii kale in waxa soo oranaysaa war waxaan maxaa ku haystaa ma fahanti marka qaarkood waxaa dhacday caqabad inaad kula kulanto caqabaday haddaad ereyga englishka wixii la garanaysid youtube-ka lagu qoro waad helaysaa laakiin inaad wixii lagu oran lahaad garanayn hadda fixer haddaan ku tusay haddaad youtube ku qorto waxa laga yaabaa inaad macallimiin kale sharax heshid laakiin fixerka haddaad weydidba fixer navigation bar aad magacaan aadan markaa xasuusnaynba navigation bar maanta haddaad qorsid navigation bar loo sameeyo youtube ka buuxa laakiin fixer cid ku tusi mayso marka see u xalinaysaa taasoo kale anaaba markaa xalkii ku siinayaaba si aad u taagila usoo dhaaqi lahay marka maxaa la isticmaalayaa dot fixed dash top baad ku xalinaysaa
mid kale waxaan rabaa inaad cashar uga fahayso bootstrap wax kasta oo front end ah waad ku xallin karaysaa bootstrap ha ka guurin wax kasta oo front end ah waad ku xallin karaysaa keliya daraasee part inta ugu badanna waan kugu sharaxaya haddii ilaahay idmo waxba ka tegi maayo koodhkan aan dhex soconna haddaba saan waqtiga kugu ilaaliyo saan waqti kugu ilaaliyo markaas halkaasaa laga raacay ma jirtaa maxaa ku cusub fixed dash top baa ku cusub keliya waxa kale waad soo baratay waxaan kale waad soo baratay kan halkaas ku eegaya sidoo kale halkan waxaa lagu leeyahay fixed button waa isticmaali karaysaa haddaad rabtid bottomka rabtid bottomka waa footerka hoose inuusan dhaqdhaqaaqin haddaad rabtisana intaas salax inkastoo tusaale aan kaa siin doono haddii la idmo isna waa la joojin karaya okay aan isla eegna haddaba waxaan filaya waa 11ka weeyaan waa kaas wuu taagan fixed waa fixed soo jeed haddaan marka socdo hoos aado waa kaas wuu taagan yahay scrollka inkastoo aan kasara kugu tusay waa kaas waa kaa fixed ma dhaqaaqay miniga waxaa ku shaqal ku qoratid markaa dhaqaaqaya kaas intaasaan kaga tegaya kan 12aad baan kusoo afmeeri doonaa haddii ilahay qadaree isagana waa fixed bottomka weeye isagana isha saa umari koodhka waxa ku cusub keliya soo ma jeed waa dhex soconaya waa dhex socon halkaasaan ku xidhay halkaas ku istaagay isagana aan kuu kiciyo okay isaga aan screenkayga ku saa inoo soo idhaahdo waan ku tusayaa gaar baan kugu soo qaadayaa waa kan hoos buu iska taagan yahay sug aan kor u qaado waxaan kale aan inaga wada xidho aan waxaan iska xidho kaas halkaas ma ku haystaa fixed bottom ma ku haysaa fixed bottom halkaan kuu dhigo fixed bottom kaas haddaan kor aado waa fixed ma dhaqaaqayo halkaas ii oolaya marka footerka waad ka dhigan kartaa fixed inuusan dhaqaaqin dadka qaarna footerka fixed kama dhigtaano waa marka kor la aado meesha wuu ka baxaa hadda sida right now sartotrodcom uu yahay oo kale aan isla eegno sartotrodcom aan tijaabo kuu siiyo footerka waxaan filayaa inuu hayrgaroobayo uusan la soconayn tan aan iska xidho aan saaf kusoo idhaahdo hadda footerka mid artaa ma joogo footerkii laakiin haddaan hoos aado footerkaygii websiteka footerkiisa waa kan waa intaas oo dhan weeyaa soo jeed waa intaas aad buu yahay footerka waa yarayn kartaa waad weynaysan kartaa waa size-ka waa la samaystaa waa la cabiraa marka waa kaas laakiin haddaan kor aado footerkii wuu qarsoomaya dadka qaarna waxay ka oran karayaan fixed iga dhig waxaan filayaa ardayow inaad wax fara badan iga haysid shaqo badan baa kuu taala practical badan samee ballankeena waa waxbaro shaqayso وهرمي سورة كهرو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته